xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka Khaatumo maanta kulan ku yeeshay gudaha magaalada Buuhoodle ayaa waxa ay ka hadleen wadahadalada u socda Soomaaliland iyo Khaatumo waxaana sidoo kale ay taageero u muujiyeen qodobadii dhawaan ka soo baxay wadahadaladaasi. anigu waxaan jecelahay inaan ka hadlo oo u iftiimiyo dadka reer Khaatumo wada xaajoodka Soomaaliland iyo maamulka Khaatumo meesha uu marayo iyo sida systemku uu soconayo wuxuu ku bilaabmo processka uu soo raacay uu yahay oo in badan laga soo hadlay oo meelo badan lagu soo kulmay sidii mandaqadan sidii nabadgelyo loogu soo wada noolaan lahaa sidii afgarad iyo maalinkan maanta isu tanaasul uu iman lahaa labada gole ee xeer dejinta Soomaaliland golaha wakiilada iyo golaha xeer ilaalintuba waxay cadeeyeen oo cod anqalabiyada ay ku cadeeyeen oo live loo wada daawanay in ay gacan taageen in ay wada hadalku uu yahay Soomaaliland iyo Khaatumo dee gunti wax gunti la geliya ka weyn waxa macaaradku marba ay dhan u dhigaan Soomaaliland baa la isu dhiibaya halkan la waxaynaya meesha inay oolin si live qofku wax kala garanaya oo garanaya waxaan leeyahay hawsha professorku wado xaqiiqada dhabta ah markaynu isu sheegno dadka Soomaaliya sanaag iyo cayn u dhashado Ali Khaliif waxa uu wadaa waxa weeyaan iyo wada xaajoodka oo maanta wada ee uu dadkan mandaqadan degan oo la wada waa doontii Nabi Nuux weey wala ninkii ka haray waa halaagsamay. dhinaca kalena xildhibaanadan ayaa waxa ay ka hadleen xaaladda amni ee deegaankani Buuhoodle iyagoo fariin u diray kooxaha ay sheegeen inay qas ka wadaan deegaankani Buuhoodle. wareer Buuhoodle waligiinba wala idinku guura hawsha halkan ka socota ee Axmed Hurif la marwanka ka yahay waa sidii magaalada lagu qabsan lahaa mana ka yeelano walaana way yeelin in magaalada meelaha ashunku aadmo meelaha shirka uga gabo ka yeelmayna waxaan leeyahay arinta laga digtoonaad waxaan leeyahay Axmed Hurif siyaasadda la saarood aad ka soo hartay ee aad maanta la warwareegaysid aqalada gobolka Cayn kada kuwa la socda ee ina cagalo madaxweynaha u yaqaan waxaan leeyahay nabadgelyada iyo wanaaga iyo sharafta gobolka Cayn ha dhaawicina cadow gacanta ha u gelina Axmed Hurif yuusay shabakadiida gelin walaalayaal nabadeena wanaageena aad baanu gacmaha iyo ilkaha iyo cagaha ugu haynaa inaan taageertaan mooyaane in kale looba baahna walaalayaal dadka gobolka Cayn degano waxa weeyaan dantiina iyo aayihiina u tashada waxa la wareejinaya waxa weeyaan in la ilaahdo ciidamada la qorayo loo qorayaa ciidamada la dagaalama Soomaaliland oo ka soo jeeda Puntland iyo maanta Muqdisho federaalka ka soo soconaya kadibna gulf leedku soo eegaya la doonay gulf calaadeen Allahumma hal balaq waa idin sheeg وسلام عبد الله ساب TV Buuhoodle.